Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo. Halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aad uga barateen in aanu idinka soo gudbinno wararka ku saabsan fayruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. Alaaba waxaan wararka idiin soo gudbinnaa maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. haddii aynu ku horeyno dalkan Finland maanta oo Jimcaha bisha March 19 ay tahay sanadka 2021 ayaa hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ee THL waxa ay shaaca ka qaaday in maanta fayruska corona laga helay dalkan Finland 770 qof, taasi oo tirada guud ee dadka laga helay ka dhigaysa 7,267 qof tan iyo intii xanuunka safmarka uu Finland ka bilowday. labadii toddobaad ee ugu dambeysay ayaa tiro gaaraysa 9,363 qof ay ku darsantay, iyadoo maalintii shalay ahaydna tirada fayruska dadka laga helay ay ahayd 804 qof. meelaha ugu badan ee laga helay fayruska waa gobolka Helsinki Uusimaa oo caasimadda iyo hareeraheeda ah, 427 qof ayaa laga helay. waxaa ku xiga gobolka Varsina-Suomi oo 115 qof laga helay. sidoo kale gobolka Birkamaa oo laga helay 54 qof iyo Kantahame oo laga helay 30 qof. magaalooyinka ugu badan ee fayruska laga helay waxa ay kala yihiin Helsinki 252, Espoo 74, Vantaa 67, Turku 70 qof, Tampere 40 qof, Hämeenlinna 16, Lappeenranta 18, Kaarina 12, Ulojärvi 8 qof, Vaasa 6 qof, magaalada Forssa 9 qof, magaalada Kouvola 8 qof, Porvoo 11 qof, Hufinkaa 10 qof, Kerava 8 qof, Järvenpää 6 qof, Nurmijärvi iyo Lohja iyo magaalada Karkkila 5 qof ayaa laga helay. Uusikaupunki 7 qof, Oulu 6 qof, Lahti waxaa laga helay 5 qof, Kuopio 8 qof, Kotka 6 qof. magaalooyinka kale ee soo harayna min 4, 3, 2 iyo 1 qof ayaa laga kala helay. xanuunka fayruska corona oogis waxaa isbitaalka ugu jira 271 qof, iyadoo qaybta gargaarka degdega ay ku jiraan 55 qof. tiradii shalay waxaa ku korortay 7 qof sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga. xagga dhimashada ayaa waxaa haatan ay tiradu maraysaa 805 qof, iyadoo 1 qof uu maalintii shalay ahayd dhintay. hase yeeshee maanta wax dhimasho oo la diiwaan geliyay in aanay jirin ayay hay'addu sheegtay. dhinaca fayruska nooca cusub ee soo baxay oo isagu toddobaadkiiba hal mar la cusboonaysiiyo tirada maadaama baaritaankiisa waqti uu qaadanayo, ayay hay'adda THL waxay shaaca ka qaaday in maanta tiradu ay marayso 963 nooca cusub ee fayruska corona, kuwaasi oo 823 ka mida uu yahay nooca Ingiriiska, 139 uu yahay nooca Koonfur Afrika iyo 1 nooc ah kan cusub ee Brazil. dhinaca tallaalka hay'adda THL waxa ay shaaca ka qaaday in dadka la tallaalay haatan tiradoodu ay gaarayso 701,203 qof. wararka kale ee ku saabsan fayruska corona ee Finland gudaheeda ayaa sida ay sheegtay dhakhtarada sare ee ka tirsan isbitaalka Helsinki iyo Uusimaa waxa ay shaaca ka qaaday waa haweeneyda la yiraahdo Eva Ruotsalainen in ay soo jeedinayaan dhakhaatiir ahaan in caasimadda iyo hareeraheeda lagu soo rogo bandow xagga dhaqdhaqaaqa ama socodka ah, taasi oo ay ku cadaysay warbixin ay siisay barnaamijka Subax Wanaagsan ee kasoo gala telefishinka dalka Finland. waxa ay sheegtay in ay soo jeedinayaan toddobaadkan ama ugu dambeynkan ku xiga in lagu soo rogo dadka dhaqdhaqaaqa xadidaada ama bandowga socodka, haddii kaleba ay tiri xaaladu faraha ayay ka baxaysaa. waxaana ay tilmaantay dhakhtaradu in xaalka gobolka Helsinki Uusimaa iyo hareerihiisa iyo qaar ka mida gobolada dalka sida Varsina-Suomi ay farabax ku dhowdahay, iyadoo xanuunkuna uu si aada u sii kordhayo. waxa kaliya ee wax looga qaban karana ay tahay in haatan xadidaada xagga socodka ah ama bandowga dhaqdhaqaaqa lagu soo rogo dadka. wararka kale ee dhinaca fayruska corona ku saabsanna waxa ay shaaca ka qaadayaan in xanuunku haatan uu aada ugu soo badanayo dhalinyarada iyo caruurta, gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda iyo hareeraheeda. dhakhtarka ku takhasusay arrimaha caabuqa caruurta Professor Harry Saxon oo ka tirsan isbitaalka Helsinki iyo Uusimaa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in arrinkaasi haatan uu yahay mid walwal leh, inkastoo uu asagu taageersan yahay in ardayda waxbarashada dhinaca internetka laga daayo oo iskuulka lagu celiyo. waxaana dhakhtarku uu sheegay sababta ay u badatay xanuunka ku dhacaya caruurta iyo dhalinyarada ee fayruska corona haatan ay tahay maadaama tirada guud ee faafista wadanku ay aada u korortay.
dhinaca magaalada Helsinki, wararka ka imanayana iskuulka hoose dhexe ee Kallio ayaa 200 oo arday oo iskuulkaasi ka tirsan waxaa la geliyay waxbarashada dhinaca internetka ah, waana ardada fasalada 4 iyo 6 kadib markii ardadaasi qaar ka mid ah ay u nuglaadeen viruska corona, waxaana laga dhexelay qaar viruska qaba. waxbarashada dhinaca internetka ee dugsiga hoose ee Kallio ayaa waxa ay bilaabanaysaa Isniinta soo socota, waxaana ay socon doontaa ilaa iyo 1 bisha afaraad. iskuulkaasi waxaa dhigta arday tiradoodu gaarayso 500 oo qof. sidoo kale magaalada Kouvola, wararka ka imanayana waxa ay shaaca ka qaadayaan in xaflad khaas ah oo halkaasi ay ku qabsadeen kaniisada Katoliga dad xubno ka ah ay u nuglaadeen viruska corona, dad tiradooda kor u dhaafayso 100 qof kadib markii qaar ka mid ah dadkii xafladda joogay laga helay viruska corona. xafladdaasi oo si gaar ah ay dadkaasi u dhiganayeen ama ahayd mid gaar ah, isla markaana kaniisadaasi iyo goob kaleba labada lagu qabtay, ayaa dadka ka qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen gobolada dalka Finland. haatanna tirada dadka u nuglaaday viruska corona ayaa aada u sii badanaysa, iyadoo walwal badan laga qabo in xaaladdu ay cirka isku sii shareerto. baarlamaanka dalka Finland waxaa maanta uu dhaqan geliyay hindise ay dowladdu soo jeedisay oo ku saabsan isbeddel lagu sameynayo sharciga cudurrada faafa, kaasi oo dhigaya in baaritaan khasaba lagu sameynayo dadka waddanka soo gala. waxaana baarlamaanku ansixiyey in maamul goboleedyadu ay awood u leeyihiin inay arrinkaasi amraan. dhinaca magaalada Turku, wararka ka imanayana booliska koonfur galbeed ee dalkan Finland ayaa shaaca ka qaaday in uu fulin doono codsi uga yimid maamulka magaalada Turku, kaasi oo dhigayay in ay boolisku waardiye ka qabtaan dad arday ah oo karantiin iyo go'doomin la geliyay magaalada Turku. waxaana arrinkaasi ilaalinta ah ama kormeerka boolisku uu bilaaban doonaa maanta ama gelinkan dambe ee Jimcaha. arrintaasi ayaa macnaheedu yahay in boolisku uu joogi doono goobo gaar ah oo gurigaasi ardadu ay degan tahay agtooda, isagoo markaasi ilaalin doona in ardadaasi aanay jabin sharciga karantiilka la geliyey iyo kuwa la go'doomiyey labadaba. waxaana boolisku ay sheegeen in faahfaahin intaa ka badan aysan bixin doonin. magaalada Turku ayaa toddobaadkan horaantiisii waxaa ka dhacay dhibaato aada u weyn oo ku saabsan faafista viruska corona kadib markii arday dhigata macadka sare ee qaranka oo tiradoodu ay gaarayso 71 laga helay viruska corona. waxaana ardadaasi la amray in ay galaan go'doomin, qaarkoodna waa la karantiilay, iyadoo markaasi lagu khasbay baaritaan in ay tagaan ku saabsan viruska corona. waxaana soo baxaysa cabsi ku saabsan in tirada dadka laga helay viruska corona ay sii badato, waxaana haatan socda hawshii dabagalka dadka uu ku dhacay viruska corona, iyadoo markaasi ay kala cadaan doonto inta qof ee dadkaasi kasii qaaday. faafistu waxa ay ka dhacday meelo kala duwan sida guryaha ardada oo degan yihiin, jaamacadda dhexdeeda, iyo goobo maqaaxiyo ah oo ardadaasi qaarkood oo xanuunka qabay ay tageen. iyadoo maalmahanba muran uu ka taagnaa tallaalka AstraZeneca ayaa sida ay sheegtay xarunta horumarinta iyo ammaanka daawooyinka ee dalkan Finland ee Fimea loo yaqaano, waxaa dalkan Finland laga helay 2 qof oo xididka arooraha ee dhiigga ku shuba wadnaha lagu arkay xinjirow 4 ilaa 10 maalmood kadib markii ay tallaalka qaateen. labada qofna waxa ay hore u qabeen xanuuno la xiriira xinjirowga halbowlaha dhiigga qaada, baaritaanka arrinkooduna weli dhex ayuu maraya. sababta awgeed ayaa hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ee THL waxa ay qaadatay go'aanka ah in tallaalka AstraZeneca ee ka socday dalkan Finland muddo 1 toddobaad la joojiyo. howlwadeenada arrimaha caafimaadka ayaa xaaladaas qiimeyn ku samayn doona ilaa iyo toddobaadka soo socda, waxaana tallaalka AstraZeneca dib loo bilaabi doonaa ugu horeyn 29 bishan saddexaad. hay-adda THL waxa ay ballan qaaday in marka la helo natiijada baaritaanka socda ay usoo gudbin doonto sida ugu dhaqsaha badan. shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen wakiilo ka kala socday THL, wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo xarunta Fimea, ayaa dhakhtarka sare ee ka tirsan THL ee la yiraahdo Taneli Puumalainen wuxuu sheegay in tallaalka iyo dhibaatooyinka soo baxay ay ku yihiin kuwo waqtigu uun kulmiyey, sababtana la caddayn doono. waxaana uu sheegay in go'aankan 1 toddobaad ay u qaateen taxadar ahaan oo dhanka ammaanka ah, iyadoo ay muhiim tahay buu yiri in walwalka jira la qiimeeyo. Baasi Bohyolo oo ka socday wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada ayaa isaguna sheegay in Finland laga isticmaalo 2 nooc oo kale oo tallaalka viruska corona ah, kuwaasoo sidii caadiga ahayd u sii socon doona.
muranka ka taagan tallaalka AstraZeneca ayaa toddobaadkii hore bilowday kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in tallaalku uu keenayo xinjirowga dhiigga, inkastoo ilaa iyo iminka aan lahaynin wax cad oo arrinkaasi qeexaya. lamana oga in xiriir uu ka dhexeeyo xinjirowga dhiigga iyo tallaalka. waxaana jira dalal dhowra oo ka tirsan qaaradda Yurub oo iyagu hore u joojiya tallaalkaas. wargeyska la yiraahdo The New York Times ayaa maqaal dheer oo arrinkan uu ka qoray waxa uu ku falanqeynayaa in arrinka tallaalka AstraZeneca uusan ahayn mid cilmiga sayniska ku qotoma ee uu yahay mid arrimo siyaasadeed ku lug leh, kaasoo u dhexeeya dalalka Yurub qaarkood oo uu Jarmalku hoggaanka u hayo iyo dalka Ingiriiska. sidoo kale maqaal midkaa la mida ayaa waxaa arrinkan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo iyaduna tilmaamaysa in arrintani inta badan ay u janjeerto dhinaca siyaasadda. waxyaabaha loo cuskanaya in arrinku uu yahay mid siyaasadeed ayaa waxaa ka mid ah in dalka Ingiriiska oo tallaalka qaybtiisa koowaad ay haatan qaateen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 26 milyan, iyadoo qaybta labaadna loo dhammaystiray dad 2 milyan ka badan. ilaa iyo iminkana aanay jirin wax dhibaato ah oo ay dhakhaatiirta dalkaas soo gudbiyeen ama soo gaaray oo ku saabsan tallaalka AstraZeneca iyo xinjirowga haatan la sheegayo. ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa isaguna sheegay in uu tallaalka AstraZeneca qaadan doono toddobaadka soo socda. sidoo kale hay-adda arrimaha daawada u qaabilsan Yurub ee EMA la yiraahdo iyo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa labaduba waxa ay shaaca ka qaadeen maalintii shalay ahayd inaanay jirin wax xiriir oo ka dhexeeya tallaalka AstraZeneca iyo xinjirowga dhiigga, iyagoo ugu baaqay dalalkii joojiya tallaalka inay halkiisii kasii wadaan. warar maanta soo baxay ayaa iyaguna sheegaya in dalalka Jarmalka, Faransiiska, Spain, Bulgaria, Qubrus, Indonesia, Ireland, Talyaaniga, Latvia, Lithuania, Holland iyo Thailand oo hore u joojiya tallaalka haatan ay tallaalkaasi AstraZeneca dib u bilaabi doonaan. waxaa weli tallaalka isticmaalkiisa hakad geliyey dalalka kale ah Austria, Denmark, Finland, Georgia, Romania, Iceland, Norway iyo dalka Sweden. dalka Finland waxa ay shaaca ka qaadeen in ay diyaarin doonaan shahaado viruska corona ah oo elektaroonig ah, taasi oo loo sameyn doono si la mid ah ama qaabka ay u sameysanayaan wadamada midowga Yurub. ujeedaduna waxa ay tahay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada in shahaadadaasi la isticmaalo bisha 6 ee sanadkan. arbacadii la soo dhaafay ayaa ururka midowga Yurub waxa uu sheegay inuu u soo jeedinayo dalalka xubnaha ka ah in ay sameystaan shahaado ay u wada dhan yihiin, taasoo la isticmaali doono bisha Juun. shahaadadaasi waxaa lagu qori doonaa warbixinta ah qofku in uu qaatay tallaalka viruska corona iyo in kale, inuu xanuunka ka bogsaday ama sidoo kale haddii negative uu yahay oo laga waayay viruska corona baaritaan kadib. waxaana shahaadadaasi lagu qori doonaa macluumaad isku mid ah. dalka Finland waxa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in marka shahaadadaasi ay hirgasho uu qofka ka heli karo adeega Omakanta ee dhinaca internetka ee macluumaadka bukaanka lagu kaydiyo. waxaa sidoo kale suurtagal ah in telefoonka lagu soo degsado iyada oo electronic ah, waxaana sidoo kale suuragal ah in la isticmaalo nidaamka astaanta adeegsiga ama koodharka, ama sidoo kale qofka uu waraaq ahaan usoo daabacan karo. madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto ayaa waxa uu maanta qaatay qaybtii ugu horeysay ee tallaalka viruska corona, sidaasina waxa uu kusoo qoray bartiisa Twitterka. waxa uu madaxweynuhu yiri goor dhaweyd ayaan tallaalka qaybtii hore qaatay, waana nooca Pfizer-BioNTech. madaxweynuhu waxa uu yiri laga bilaabo hadda iyo wixii ka dambeeya dhammaan sidii hore oo kale ayaan dadka u tixgelinaya. waxaan qaadanayaa buu yiri afshareerka, waxaanan u hoggaansamayaa dhammaanba arrimaha ay soo jeedinayaan howlwadeennada caafimaadka. waxaana uu sheegay in iyadoo lagu tallaalay ama xanuunku uu kugu dhacay aad weli faafin karto cudurka, taasoo uga gol leeyahay madaxweynuhu in dadku xataa haddii la tallaalo ay dadaalka halkiisa kasii wadaan. wararka ka imanaya dalka Norwayna waxa ay shaaca ka qaadayaan in boolisku haatan baaritaan uu ku hayo fal ay sameysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Norway Erna Solberg, kaasi oo ku saabsan in lagu tuhunsan yahay in ay jabisay sharcigii ku saabsanaa ka hortagga viruska corona ee ka jiray dalkaasi Norway. haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Norway Erna Solberg oo da'deeda haatan 60 sano ay kusii dhowdahay ayaa waxay maalintii shalay ahayd xaflad la qaadatay 13 xubnaha qoyskeeda ah, iyagoo goob gaar ah ku wada casheeyay.
sida uu dhigayo sharciga ka hortaga faafista viruska corona ee Norwayna waxaa haatan goob ku kulmi kara oo keliya ugu badnaan 10 qof. ra-iisul wasaaraha dalka Norway ayaa arrinkaasi raaligelin ka bixisay waxaana ay isku difaacday iyadoo tiri ma aanan garanaynin tiradu inay intii dhaaftay iyo in kale. waxaa dhici karta dambigaasi haddii uu ku cadaado ra-iisul wasaaraha in ganaax lacageed dusha laga saaro. wararka ka imanaya dalka Hungary-na waxay shaaca ka qaadayaan in maanta rikoor cusub oo tiradii ugu badneyd ee viruska corona laga helay dalkaasi Hungary tan iyo intii xanuunka safmarka uu ka bilowday, iyadoo 24 saac la soo dhaafay 10,759 qof laga helay, 213 ay u dhinteen. dalka Hungary oo tirada dadkiisu 9.8 milyan ay tahay ayaa ilaa iyo nus milyan ka badan haatan waxa ay qaateen tallaalka, waana dalka labaad ee ugu badan ee dadkiisu ay tallaalka qaateen marka laga reebo dalka Malta. waxaana tallaalada ay ururka midowga Yurub ay hirgeliyeen ama ansixiyeen kasoo dalkaasi ka socda tallaalka Ruushka Sputnik iyo kan Shiinaha ee Sinopharm. dhegeystayaal, dhinaca dalka Soomaaliya markii aynu eegno wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintii maalinlaha ahayd ee xogta viruska corona waxa ay ku sheegtay in 48 saac la soo dhaafay 325 qof oo hor laga helay dalka Soomaaliya viruska corona, 22 qofna ay u geeriyoodeen waxaana ka bogsaday sida wasaaraddu ay sheegtay 19 ruux. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa cadaysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Somaliland 179, Galmudug 39, Banaadir 8, Puntland 8, Hirshabelle 7, Jubbaland 2, Koonfur Galbeed 2 qof. 219 ka mid ah bukaanada la xaqiijiyayna waa rag, halka 106 ay ka yihiin haween. tirada guud ee ilaa iminka laga diiwaan geliyay cudurkan viruska corona ee safmarka tan iyo markuu Soomaaliya ka bilowday ayaa waxay gaaraysaa 9,925, iyadoo tirada guud ee ka bogsatana ay tahay 4,420, waxaana u geeriyooday 414 qof. Dr. Fawziya Abikar Nuur, wasiirka caafimaadka iyo arrimaha bulshada, ayaa ka codsatay dadweynaha Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkan uu dadka u keeni karo maadaama uu mar kale dalka dib uga bilowday. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa 16 bishan Maaj waxa ay sheegtay in dalka laga bilaabay tallaalka COVID-19 ee ugu horeeyay gudaha dalka Soomaaliya. wasiirka ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee tallaalkaasi qaatay ka hortaga viruska corona, waana nooca AstraZeneca kaasi oo haatan si habsami leh uga socda gudaha dalka Soomaaliya. haddii aynu eegno dhinaca adduunweynaha dhegeystayaal, ilaa iyo iminka tirada guud 122,481,607 ayay maraysaa. tirada dhimashadana waa 2,705,298. qaaradda Yurubna 40,698,572 qof ayuu ku dhacay, waxaana u dhintay 910,950 qof. marka aynu eegno dhegeystayaal, dalalka Scandinavianka iyo xaalkoodu sida uu yahay ayaa haddii aynu ka horeyno dalka Sweden, tirada guud ee laga helay waa 744,272. 24 saac la soo dhaafay waxa la xaqiijiyay 5,743, hase yeeshee wax dhimasho lama xaqiijin. tirada guud ee dhimashaduna waa 13,227. Sweden kaalinta 19aad ayuu tirada adduunka kaga jira. dalka Denmark oo kaalinta 59 kaga jirta tirada adduunka ayaa 24 saac la soo dhaafay 786 qof laga helay, taasoo tirada guud ka dhigaysa 223,415. dhimashada ayaa 24 saac la soo dhaafay Denmark waxay ahayd 1 qof, waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa 2,397. dalka Norway oo kaalinta 93aad ku jira tirada adduunka ayaa tirada guud waxa ay maraysaa 84,533. 24 saac la soo dhaafana 134 qof ayaa laga helay, iyadoo maalmaha Norway tirada laga helayo viruska ay aad u badan tahay. dhimasho lama sheegin 24 saac la soo dhaafay, tirada guud ee dhimashadana waa 648,000. dalka Canada oo haatan ku soo xiga dalka Holland
halkii milyanna ay wax yar uga dhiman tahay ayaa tirada guud Canada waxa ay maraysaa 922,848 qof. 24 saac la soo dhaafay Canada waxa laga helay 3,609. tirada dhimashadu waxa ahayd 36, waxaana tirada guud ee dhimashada ee dalka Canada ay maraysaa 22,590. marka la eego dhinaca dalalka adduunka ugu horeeya ee 21 ah, halka milyanna kor u dhaafay waxaa hogaaminaya dalka Mareykanka, iyadoo aad muddo mar kale in xanuunku haatan uu wadamada oo dhan kor u sii kacayo. Mareykanka 30 milyan ayay kor u dhaafeen. 24 saac la soo dhaafay 62,629 qof ayaa laga helay, 1,705 way u dhimatay. tirada dhimashaduna nus milyuun ayay Mareykanka hor u dhaaftay. Brazil oo xaalkiisu aad u adag yahay, kaalinta labaadna mar hore Hindiya ka qaaday, ayaa haatan 12 milyan ku dhow. 24 saac la soo dhaafay Brazil 87,169 qof ayaa laga helay xanuunka, 2,659 way u dhinteen. tirada dhimashadu haatan 300,000 ayay ku dhowdahay. dalka Hindiya ayaa kaalinta saddexaad ku jira, 11 milyan iyo bar ayuu maraya. 39,643 ayaa xanuunka laga helay 24 saac la soo dhaafay, iyadoo aad muddo mar kale inuu si aad kor ugu kacay. hase yeeshee tirada dhimashada ayaa 155 ahayd, waxaana tirada guud ee dhimashadu ay maraysaa 160,000. sidoo kale dalalka aadka uu ugu faafay waxaa ka mid ah dalka Faransiiska. 34,998 qof ayaa 24 saac la soo dhaafay laga helay, 268 way u dhimatay. 4 milyan iyo 200,000 ayuu Faransiisku ku dhow yahay tirada guud, dhimashadana waa 9,679. Talyaaniga ayaa sidoo kale aad uu xanuunku u faafaya. 24,907 qof ayaa laga helay 24 saac la soo dhaafay, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 3 milyan iyo 300,000 in ku dhow. 423 qof ayaa u dhintay, 103,855 qof ayay tirada guud ee dhimashada maraysa. dalka Turkiga ayaa isaguna mar kale tirada faafistu ay cirka isku shareertay. Turkigu 3 milyan wax yar ayaa uga dhiman, waxaana tirada 24 saac la soo dhaafay laga helay ay ahayd 20,049 qof. 81 ayaa uga dhintay, iyadoo tirada dhimashaduna 30,000 haatan ay ku dhowdahay. Jarmalka ayaa sidoo kale mar kale ay tirada faafistu kor u kacday. Waxaa 24 saac la soo dhaafay Jarmalka laga helay 17,860, iyadoo tirada guudna 2 milyan iyo 600,000 ay kor u dhaaftay. 201 qof ayaa u dhintay Jarmalka 24 saac la soo dhaafay, tirada dhimashaduna 75,000 ayay ku dhowdahay. dalalka sida aadka ah u kacay waxaa ka mid ah dalka Poland oo 27,276 qof laga helay 24 saac la soo dhaafay. 2 milyan ayuu haatan qarka u saaran yahay Poland. 356 qof ayaa u dhintay xanuunka, tirada dhimashaduna 48,000 ayay kor u dhaaftay. sidoo kale dalka Ukraine ayaa mar kale tiradu kor u kacday. 15,053 qof ayaa laga helay. Ukraine 1 milyan iyo bar ayay haatan kor u dhaaftay tirada guud. 267 qof ayaa xanuunka u dhintay 24 saac la soo dhaafay, iyadoo dhimashaduna haatan 30,000 ay ku dhowdahay. dalka Czech oo kaalinta 20aad ku jira ayaa isna 12,003 qof laga helay 24 saac la soo dhaafay. 1 milyan iyo bar ayuu fooda la galayaa mar dhow dalka Czech. 175 ayaa u dhintay xanuunka 24 saac la soo dhaafay, iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay marayso 24,230. dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo, waa codka Soomaalida Finland SSM halka aad kala socoteen wararkaasi, iyadoo wararkii viruska corona ku saabsanaa ee Finland iyo caalamkana intaa ay ku egyihiin. intaanaan ka bixin barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaynaa dardaarankeenii ahaa aan dhexdeenna isdaryeelno. qofku ha ku dadaalo in uu qaato awaamirta ka imanaysa dhanka howlwadeenada caafimaadka. afshareerka in la qaato, iyadoo aad ogtihiin in hadda gaadiidka dadweynaha marka la raacayo khasab laga dhigay ilaa qofku in uu sabab caafimaad u qaadan waayo mooyaane. weliba dadka xitaa sababaha caafimaadka aan u qaadan karin waxaa kasoo gaartay dhibaato badan, maxaa yeelay dadku hadda sabir ma leh marka ay arkaan qof aan afshareer wadan oo tareenka saaran ama baska saaran. dadweynihii ayaa ku qaylinaya. sidaa darteed qofku ha ku dadaalo afshareerka inuu qaato, kala fogaanshaha lagu dadaalo, isu imaatinka iyo xafladaha gaarka ah hala joojiyo. dhibaatadooda ayay leeyihiin. waad arkaysaan hadda magaalada Kouvola xafladii kaniisada Katoliga ah dhibka ka dhacay, iyo magaalada Turku oo dhibaato ay ka taagan tahay, ardada oo dhibaatada ugu horeysa ay ka raacday mar ay isugu yimaadeen goob xaflad ah. sidaa darteed xafladaha iyo isu imaatinka hala joojiyo,
gaar ahaan annaga inaan iska joojino, maxaa yeelay far baa nagu godan, dhibaato ayaa naga raacaysa, doorashadiina way soo dhowdahay oo waxay keeni karaysaa in aan noqono kiis doorashada lagu galo. hadaad xanuunsan tahay gurigaaga joog, xitaa haddii hargab aad isku dareento ama juucjuuc aad dareento, shaqana ha aadin, iskuul ha aadin, gurigaaga hu ekow, baaritaankana hore ka aad. baaritaanku waa kuu bilaash, nadkaad ka buuxinaysaa ama taleefon baad wacaysaa. baaritaanka markaad aadayso xusuusnow inaad gaarigaaga ku aado, ama hadday meesha kuu dhowdaha u lugayso, hadday kaa fog tahayna aad dalbato taksiga loogu talagalay qofka baaritaanka koronaha aadayay. markii baaritaanka aad kasoo baxdo, gurigaaga soo gal, kuna ekow gurigaaga ilaa jawaabtu ay kaaga imanayso. macnaheedu ma aha in jawaabta intay kaaga imanayso aad fasaxanta iska wareegi kartid. waxaa dhici karta adoo aan astaamo lahayn cudurka inaa faafinayso. karantiil haddii lagu geliyo, guriga ku ekow. xitaa haddii baaritaanka hore ee karantiilka uu negative noqdo, waa inaad guriga ku ekaatid ilaa baaritaanka labaad markaad gasho dhakhtarku uu ku fasaxo. waxaa yeele waxaa dhici karta adoon astaan lahayn cudurka inaad faafinayso. dhegeystayaal, waxaan nafteenna ku daryeeli karnaa iyo tan dadkeenna iyo ehelkeennaba inagoo u hogaansana awaamirta wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo tan dowladdu ay soo saarayso, oo ay ugu horeysaan nini in qof walba dhinaciisa uu ka dadaalo, isu imaatinka iyo isu socodka la yareeyo, qof walbaana gurigiisa, shaqadiisa iyo iskuulkiisa uu ku ekaado. wixii intaa kasoo harena aynu dul qaadano annagoo ilaahay tala saaranayna, una hogaansamayna awaamirta, si ayna u dhicin in hadhow aanan ka shallaayin markii xanuunku uu nagu dhaco, amaba aanan dad kale dhibaato gaarsiin, iyadoo haatan xaaladda isbitaaladana aada looga dayrinayo. weliba la bilaabay qofka xanuunka laga helo hadduu qeybta gargaarkaa galo in loo diro isbitaallo kale oo isbitaaladan ay buuxsameen. waxaasoo dhibaato ah waxaad isaga ilaalin kartaa adoo ilaahay tala saarta, kadibna u hogaansama awaamirta caafimaadka. intaa ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii maanta. waa codka Soomaalida Finland oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.